waxaa magaalada Jabuuti ku geeriyootay wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka marxuumad Marwo Khadiija Maxamed Diiriye Xaashi kadib xanuun asiibay iyada oo ka mid ah wafdiga ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ee ka qaybgalaya madasha aragti wadaagga ee lagu qaban lahaa dalka Jabuuti. 2 Abriil sanadkii 1964 ayay ku dhalatay magaalada Muqdisho. Waxbarashada Quraanka iyo aasaasiga waxay ku soo qaadatay dugsiga dhexe ee Xasan Dhagey ama Buurey ee Jowhar sanadihii 1972 ilaa 1979. Heerka jaamacadeed waxa ay ku biirtay Jaamacadda La Foole balse ma aysan dhammaysan duruufo dhanka hooyanimo awgeed. Sanadkii 2014 ayay qaadatay waxbarashada koowaad ee jaamacadda. Siyaasad ahaan waxa ay kaga soo biirtay baarlamaanka Carta sanadkii 2000. 1981 ilaa 1982 waxa ay soo noqotay bare dugsiga dhexe ee Xasan Dhagey ee Jowhar. 1982 ilaa 1983 waxa ay noqotay xogayaha iyo maamulka xisaabaadka dugsiga sare ee beeraha Jowhar sanadihii 1983 ilaa 1984. Maamulka xarunta xiriirinta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe Buurane 1984 ilaa 1990. Mashruuca fidinta beeraha 1990 ilaa 2000. Ganacsato iyo guri-joog ayay soo ahayd. Doorkeedii siyaasadeed sanadkii 2000 ilaa 2004 xildhibaan dowladii Carta lagu soo dhisay. Sanadkii 2004 ilaa 2009 xildhibaan dowladii Imbagati lagu soo dhisay. 2004 wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo daryeelka qoyska xukuumadii ku-meel gaarka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda hidaha iyo dhaqanka xukuumadii ku-meel gaarka ee 2005 ilaa 2006. 2006 ilaa 2007 wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta hanuuninta dadweynaha xukuumadii ku-meel gaarka. 2008 ilaa 2009 wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska. 2008 ilaa 2009 siyaaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, kalluumeysiga iyo bey'ada. Sanadkii 2009 ilaa 2010 waxay soo noqotay xildhibaan baarlamaankii lagu biiriyay Jabuuti. 2009 ilaa 2010 wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga xukuumadii ku-meel gaarka dhirta iyo daaqa. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga sanadihii 2010 ilaa 2011. 2011 wasiir dowlaha wasaaradda biyaha, batroolka, macdanta iyo tamarta. 2011 ilaa 2012 gudoomiyaha guddiga cilmi baarista tiknoolajiyadda, boostada iyo isgaarsiinta ee Golaha Shacabka. 2012 xildhibaan Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 2013 waxay sidoo kale soo noqotay gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka, haweenka iyo bini'aadanimada ee Golaha Shacabka. 2014 wasiirka wasaaradda horumarinta xuquuqul aadanaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka. 2016 wakiilka u matalaya Soomaaliya IGAD. 2017 xildhibaan Golaha Shacabka ah. 2017 ilaa 2020 waxay ahayd wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga. 2020 ilaa 2022 wasiirka gargaarka iyo musiibooyinka ayay ahayd. 2020 xildhibaan Golaha Shacabka ah. Ugu dambeyn 2022 waxa ay ka mid noqotay xukuumadda dan qaran, gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha. Allah u naxariistay marxuumad Khadiija Maxamed Diiriye. Waxa ay door weyn ka soo qaadatay dib u dhiska Jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya, iyadoo ka mid noqotay baarlamaankii ugu horeeyay burburkii kadib. Tan iyo waqtigaasina waxa ay ka tirsaneyd Golaha Shacabka.